baabari wuxuu ka shakiyay in xaaskiisa la sheer garayo dabadeedna nin saaxiibkii soo qadageeyo kiino maanta markaad ila qadayso waan ku qadageynayaa xaaskaygaan odhanaya qadaynoo keen qol baan adigana ku fadhiisinayaa dabadeedna markay xaaskaygu kugu timaado naaskaa ku dhegbuyo walaxay samaysaan eegaya dabadeedna naaskiibuu ku dhegay way qaylisaa dabadeedna ninkii kala ordoo yidhi naa maxaa dhacay ستيم واحد عيبان قرنيا سوني كي دماشيها بريس كي دوشك كما قوبي قاعدين شراتنا والله هو بيا اوكسي يا وين يسلو قاي وحسينا يا والله كفاني شوف انا الهي waxaan ku barin shib laga dhigay arake markii uu ka haystay ween dhaweed baan gabar ku yiri sawiradaada ay soo dir cabaar bay ugu adkaysay waxay tiri kuma soo dirayo walaal sawiradeeda qof hore ma dirin markii dambe waxay ii soo dirtay gabadh in dhawaaweyn oo inta indhu laagayn soo ay ilmaabtiin oo dibadda jirta gabadhii baan iyadii mooda waayay walaal waa ku xiftiya meel baan ku dhigayaa laba cisho kadib bay tii status ka soo dhigtay walaashay Samiira waan ku hambalyeynaa gabadhii meel ka qalin jabisay anna ribeel baan u galay markaasaan ku Samiira waatay saygu tideetan Roomaalid maxay igu soo diray marka dumar oo ka daay ragga sawirada beenta u dirasaan mid kale aan ku yidhiyadana sawir ii soo sawirada ayadeed moodin dhaqaab weyn ay xiran tabay ii soo dirtay saygu tii waliba ilaali oo meel dhigo sawirkayga qof kale hayga aan ilaali isaga markii hore deemaa فوتوغراف بانو لا دونان dumaro ka daay raga beenta sawirradana leedin photograph bay gala jiraan mobilka ba xalay baan dhaqay waxa sabeen walaaltay looma dulqaadan oday 7 jira baabiri masaajid tagay dadna wuxuu maqlay sheekhu wuxuu ka maqlay khudbad intuu dhageystay xilli kasto aad saantaada la ciyaarto hal gaal baa dishay dad laba jeer la ciyaarto laba gaal baa dishay dabadeedna saasaad jannada ku galaysaa haddaad habeen dheel gaal ka disho odaygu wuxuu siyaa jannada gashi intuu haruur iyo qabanti soo baxaysta bislaantiisu yimid markaas uu wax maqlaysaa saasaa jirta in habeenkii inta haddaan galo intaas oo gaal baan dilay jannada hore ka galay awalba waan ogaabay tiri anigu in hawshani jannada lagu galay wad odaygi ba haafka hore ciyaarta si wacan u galay haaf labaadkii buu haddana galay mar saddexaadku iska seexdo odaygi intuu naqas ku dhagay isagoo iska seexdo istuduubay ay ku tii wariya taana u keento war toosniyo gaalada inta hadhaaynu leynayso yu gaala hadhay mar saddexaad mar afraadkii bay tiri arra dibaddu qayli waa reeriyo dhanbu toosay markaas ay ku tii war maxaad la qaynayso sida gaaladan cidna la layso doonana bari baa waxa gabadh dhagala oo qurux badan oo laga tagi waayay haya baan nin guursaday haya dabadeedna markuu guursaday baa gabadhii way dhagalaadahay marka habeenkii hawsha la galo ama Champions League la ciyaarayo haya ciyaarta isfahan baa loo baahan yahay sax gabadhii dhagahala ay bushiri sidii wax ugu faantay habeenkan buu siyaado ciyaarta la bilaab haya aad israkibtaande haya dabadeedna hawsha la bilaab hay markii ugu horeysay ma garan uu baal sameeyay saa uga dhig دعم ساوي ده في مركزتي لأنه مركز صادرة بال كوبيتها وساوي قدي مركزين سجاشن كي مركز بنت سايري السوق اللي حيطانه بالشباب صاف ستيري وحضرتك سنين وين أو أنتو قبل لب الله ما يخير داري أو وبقول هؤلاء يسووا باتشي ومال أنت يقول تميد intuu jeebka gacmaha iska gashto ama iska cadayanaya baad arkaysaa gabadhu macaday bay soo doonad waxaad arkaysaa nin weyn oo gabadhii markuu in yar la taagnaado cabaar ay wada hadlaan ku oranaya hal lagu helo sootan kula taagan maxaa la helaa aan is soo qabanno soo wasaabka iguma jirtid ila soo buuqde ana hadhow ku soo qabanay war haday kula taagantahay gabadha wax kala hada wixii la iskula sheekaysan jiray baa talo dhamaaday hablaha adduunka ugu wacani waa gabadha soo jeeda habeenkii ee saamaleysha ee ragga u sheekaysa waa gabdhaha dhala darawaliinta gaadharka xamaalinta niman tiglayaasha baslayaasha tuugta gaadhka askariga nimanka aan seexan ee habeenkii dabanka aan hurdadu karin ee saamaleylka ee awga gaadhiyaasha waaweyn mariya ee geed adaygoo dhan hablaha dhala waa hablaha saamaleyle ee soo jeeda marka hablaha hal ogaado baan leeyahay geed waliba dheecaankiisu dhalaa nin waliba qofku jiifiyu soo toosiyaa shay walba wixii lagu shuban baa laga shubaa aadal ba jeclaada islaam duuqa badeedna dumarkuna waa ku ismacaaniya saanta ismacaaniso istiyaado cindigaas oo inta leego cirrada meel walba kaaga taala baa lagu jeclaada dadna ismacaani ma istii saana isaga marka hore ku yiri saanaan cadahayn oo caata weyda ahayn ba cindigaygu jeclaaday hadii aan ku caruuso cilmiyaad ku qabtaa markaasay tii tobanaan kala cayna oo cilmiga meel fog ka gaaray
bacaashaqayga dartii cisbitaalka u yaalla ee xaggaan ku geynayaa markii uu isaga ku tiri markaasuu gu yimaado cidku jacayday adigoo kor iyo hoos baciroobay naasaal calal moodiy cirbadiina laayada macid baa ku jeclaatay ku yidhi isagii islaantiina bartiibay ku guurbeeshay gabadh baan whatsappka iska baranay beri dabadeedna berigu whatsappka cusbaaba ahayd mar walba statuska waxay soo dhigtaa yaa online yaa soo jeeda habeen wacan ama broadcast bay ka soo dirtaa anna waxaan isaa adaa de online gabadha la hadal ma beri belay baan galasaa anaa online soo ninay isjecel yihiin bay doonaysaa inuu ribelay u soo gala anna mar walba waxaan idhahdaa anaa online ribelay baan u gala markaasay taa group bay ka soo dirtaa ama broadcast yaa online ma seexateen saaxiibay waan soo jeedaa ma seexateen soo nin bay u dan leedahay warna hablaha hadaarinta whatsappka isticmaala yaa online yaa soo jeeda iyo ragga ka daaya annagu ribelay baan iska soo wada galana agi biyadhaanka baa nin shiikha wixii iibsaday booyad ninkuna wuxuu nin oday lacag leh buu ahaa dadna wuxuu siriyaad u dhiibta nin muqayil u dhiib ninka muqayilkaana wuxuu ga shakiyay inuu booyada uu ka khasaarayo lacag ka cuno ku qayilo xagga hore wuxuu kaga qora qofku aaminay weliga ha khiyaami kii darawalka aba arkay wax ku qoran baash isna xagga dambe wuxuu kaga qora waadna tuuntay wallahi naga ta dadna ay shiikhaade sidii buu ku xarka goos ma garanaysaa hal la socdo qofku waa in yar oo ku daro waa maalintaadii keep going wax walba waad qaban kartaa lahaan adigoo gabadh yar arday macallin u noqon karay haddaad carmel iska guursato adigu arday noqoto dee walaal maaha kartaa walaal dhiirigeliyo waxaan ahay adigu gabadh hayni oo waxooda hayno geed hoosti gabadh ku duubaya ee aad ummadii taa kaca fadhiga ka kaca isdi warta dadku waxaanad ahayn maxaad ugu sheegtay ilaa de miyana qorin buuga inaa sax guusha lagu gaaro xagaad ku qortay saddexda guusha ma gaadhi guusha sawirkan geed hoosti gabadh ku duubaya ka taagan banaanka taagan war dadka nagu maqashay dad baan waxaan ka dhaadhicinaa sida guusha lagu gaaro adoo ha ku oran guul baa la gaaro iyadaan mid la gaarin baa dadka lagu yahay guul baan u gaadhin sida jacaylkaaga la saga ilaaliyo inuu ku khiyaameeyo dhiirigeliyaasha Soomaalidu waa waxa ya beri baa midna casoo cawaana hooyadii u guuris dabadeedna waxay ku tiri hooyo gabadha markaad aqalka wada gashaan isoo wacanaa ku hagaye ila way ogtahay inuu nacas yahay oo waxba gabadha ku sameeyno gabadha ka dhanaansan karaayn dabadeedna islaantii baa tiri way markaad aqalka u gashaan soo wac si hooyo sidii hooyo kaasi barwaaqa dharkii bay dhigatay sidii diga aduguna hooyo si hooyo sariirtii bay jiifsatay sidii dusha kaga jiifso hooyo suu ku jiifsatay si hooyo baalkii baa adkaaday sidii waar ku qabo markaasuu ku qab markaasuu hooyo sidii gidaar baa soo celiyay markaasay ku tii hoos uga dhig mar labaad bay hooyo sidii gidaar baa soo celiyay sidii waar hoos uga dhig lagu qaadi markaasuu hooyo mar saddexaad sidii hoog buu igaga dhaca markaasay tiri ku hay barta markaasuu abaag wayn jiray